abaro saddexdii ama sagaalkii fiidnimo ilaa iyo 11kii fiidnimo saacada bariga Afrika roob mahigaan ah oo ka da'ay degmada Guradhaamole ee gobolka Liban ayaa wuxuu sababay inuu ku fataho xaafadaha magaalada Qaar. halkan aan taaganahay waa qaybo ka mid ah xaafada koobaad ee degmada Guradhaamole ee gobolka Liban. xaafadahan waxa galay daadkii xalay. xaafado badan way ku barakaceen. dadkaas barakacay waxay isugu jiraan dad masaakiin ah oo danyar ah iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba. roobkan ayaa wuxuu sidoo kale geystay khasaare la xiriira dhanka burbur guryaha ah taasoo guryuhu u galay meelaha qaar uu duleeliyay halka gogoshii iyo wixii raashin ahayd dadkani haysteenna uu ka qooyay. magacaabo la عبد القاسم حسن xalay soo gaaray xalay waxaan soo gaaray dad fara badan oo guryihii naga galay raashin iyo hanti wax walba oo laheen oo dhan uu qaaday xaafadahan waxa ku nool dad cuuriyaan ah oo aan caga lahayn oo ka carari karin marka dadkii markuu xaafadaha soo galay dadka cuuriyaanka ahaa khatar ayuu galay in yaani ma taqaana la qaylo oo xaafadii oo dhan ay soo baxaan oo la xumbaaro heer noocaas ayaan gaarnay ilmihii xaafadahan ku jiray dhammaan waa loo soo gurmaday marka sidii ayaa xaafadahan looga saaray ciyaalkii wax kale oo laga saaray ama hanti ah ma laha xalay xagee hooydiinahayd waxaan u ahayd xaafadaha deriska daadadku ayna gelin ayaan u cararay halkaasaanu galnay dadkan ma markii ugu horreysay soo galaa mise waa mid xilliga roobka uu yimaado meesha carra jilaac tahay dadkani wuu soo laalaabtaa xilli walba uu soo noqdaa sanad walba oo roob da'o waa noocan sanadkii ka horreeya kana sidan oo kale baan ahayn sanadka maantana waad u jeedaan waa kana marka sanad walba waa noocan siyaada cali cabdullaahi baa la dhahaa waka balse wax u dhacay xalay maxaa u qabtay saaco habeenimo roobku iyo soo daatay 6 saaco habeenimo marka buul yar oo 5 mitir baan ku jira markuu ilkaha mar dhulkaana jiifay sariir ma dhisne lib markuu dhahay cunug yar oo ag jiifto habar yar oo ah iyaa u uleysay gabadh suuqa socoto ilmayan hoosta saa ugu wada iyaa ilmihii gabadhii u dhiibtaar bay soo xumbartay guriga ninkeeda guriga uu buuxaa saakana waa la jabiyay xalayna markii waan ka soo baxay waa la jabiyay meeji laga duleeliyaa muuqato sariirtii aan ka kor qaadna dhulkii baa muuqda waa cidla walaalow anu waad aragtaa saan ahayna deer horena sidan un bay ahayd gu horena sidan may deertana sidan un bay ahayd laba sanaan saa mari sanad hore 15 cisho markaan joogno ilaahay roobku naga baadi waan soo noqday guri qaraabo un baan intaa joog waan cawday meel kastoo dhan baa la sheegay waa la isawiro waxba la ima tari walaalow qof sidan oo curyaan abaan hay biyuhu hadda ila laqaan hadda wax in daqiiqadan joogo saban u qarqari jir saban u qarqari markay gabadhii iqaan dharkii waa iska siibay waa la isoo dhigay hoygayga san caawi iyo habeen dambe u bariyo ii badbaadiyo walaa dadka la mid miyaane magacayga maxamed xuseen aadan baa la yiraahdaa dhibaatada ka dhalatay horta 196 qoys buu saameeyay dadku xalay markii laga soo bilaabo biyuhu meesha ay ka yimaadeen ilaa iyo halkaas buurta ilaa iyo xaggan inta u dhaxaysa dadka degan oo dhan bay maraan biyuhu maadaama ay maraan 196 qoys bay saameeyeen biyuhu 196 da qoys saameyn nafeed kama dhicin laakiin saameyn maal baa ka dhacay guriyay biyo galeen dad waayeel oo maxaan ku dhahday waayeel oo socon karin ba habeennimadii in guryahoodii laga guro intay dhalinyaro soo kacday dhacday curiyaan baa jira gurigan oo kale ku jiray oo la qaaday xilligaas hadii firaashyadii iyo alaabtii guryaha leedii waxayna ay ku qoyeen marka qoysaskan hadda kaliya ma wax badan bay sidan u saameeyeen biyahan roobkan ka horreeyna sidan bay ahaayeen sanad walba markii roobku imaado sidan weeyaan roob weyn baa xalay daay oo saacado badan socday roobkaasi wuxuu sababay inuu qoysas badan barakiciyo oo saameynta daadkan waxay ka timid sanad ka hor 2012 magaaladan waxa laga fuliyay master plan qorshahagii magaalada maadaama laga fuliyay halkan waxa isku furmay togagii iyo marinadii biyaha ee magaalada kuwaasoo markay qorshahaanan ku jirin in la maareeyo oo drainage loo sameeyo maadaama mashruuc uu ahaa wadooyinka magaaladu siday u degan tahay in master plan loo sameeyo markiiba roobkii xigay waa la arkay saameyntii fatahaadaha iyo roobka dawladuna way ka waraysaa 2013 daraasad baa la sameeyay maadaama daadku fara badnaa biyuhu ay badnaayeen
daraasadii kadib 2014 waxa loo qabtay mashruuc daad leexin iyo caradhig magaalada ku sameynaya waan rajaynaynaa qorshahan ay ku jirtaa 2014 rubci diyaar garowga hadda lagu jira designkii mashruuca iyo sidii loo sameyn lahaa diyaar garowgiisa xafiiska ay ku jiraan waan ka warhaynaa raxmadii baa bilaabatay oo roobkii baa bilowday kulay hadda xilliyadii roobka bilaabanayo way sababeen qoysas badan oo ay ku barakaceen waan soo booqanay guryahooda waan ugu tagnay wixii loo qaban karo qoysaska degdeg gurma degdeg insha Allah cidii ay khusayso waan la wadaagayna waan loo sameeynaya mashruucii saameynta guud yeelan lahaa ee magaaladan dadka lagaga leexin lahaana qorshuhu ku jira hadda waa loo sameeynaya 2014 in la dedejiyana waan ku talagaleynaa maadaama hadda xilli roob lagu jiro